السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيارت رجع أكاديمي يعد ولا فيديو كنساقر دونا موعد وضع السلامية waxaan noo soo socon doona taxaniin ku saabsan IQ-shan casharkiisii toddobaad oo noqon doona noocyada ay traders-ku kala baxaan amaba noocyada dadka suuqa ka ganacsada ay uga ganacsadaan ay kala baxaan ee caamka ah la yaqaano inaka oo difference-ka u dhaxeeya iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin baa qeexi doona taasoo ka anfici doonta haddaad suuqan ku cusub tahay inaad kala ogaatid oo si kala dooratid noocaad noqon doontid adoo haddiiba hore aad suuqan ugu jirtay oo aanad nooc gaara aanad hore u garanayna hadda fuuligan baad ku ogaan doontaa noocyada tradersku waa 4 qaybood baa loo kala saaraa qaybta koobaad waxaa la dhahdaa magacooda scalpers baa la dhahdaa waxay haystaan amaba ay ka tareergarayaan suuqa 5 minute iyo wixii ka hooseeya sida 1 minute 30 second 5 second markaa suuqa waxay 5 minute ka hooseeyaba haystaan ay ku galayaan suuqa wuxuu noqdaa badanaa 5 minute iyo wixii ka hooseeya magacoogana waxaan ku sheegnay scalpers baa la dhahdaa nooca labaad waxaa la dhahdaa day traders baa la dhahdaa waxay haystaan amaba se ay suuqa ka galaan amaba ay haystaanba 1 hour iyo wixii ka sareeya sida 2 hour iyo 4 hour iyo 8 hour iyo 12 hour iyaga oo aan dhaygo dhameystiran haysanaysa magaca ka muuqata wixii ka sareeya sida 2 hour ka 4 hour ka 8 hour ka ila 12 hour intaas ka trade garayaan marka haddii aad dadka inta badan waqtiga ay suuqa ku galiyaan amaba ay galiyaan ay tahay 1 hour wixii ka sareeya waxa tahay day trader baa tahay haddana hore u garanin haddiiba aad 5 minute iyo 1 minute waxa ka trade garaysidoo ku gashidna scalpers baa tahay nooca saddexaad waxa la dhahdaa ama magacooda waxa la dhahdaa swing traders baa la dhahdaa noocyadan waxay ka trade garayaan amaba ay suuqa haystaan maalin 2 3 intaas bi suuqa ku jiraan haystaan marka hadda dadka kamid tahayna magaca lagu oranayo waxa weeyaan swing trader baa la oranayaa nooca ugu dambeeya waxa la dhahdaa position traders baa la dhahdaa noocyadan waxay badanaa haystaan weyga bilo ilaa sanaday haystaan diiba aad bil ka trade garaysid weyga ka trade garaysid sanad ka trade garaysid magaca marka lagu bixinayo ama isku aqoonsanaysaa wuxuu noqonayaa position trader marka guud ahaan noocyada ay kala baxaan dadka suuqa ka ganacsada ama tradersku waxay noqon doonaan 4 nooc marka astaamaha aan soo sheegnay mid kamid ah hadiiba aad marka kala bilmisaa tahay fahmida ka trade garaysid waxaan magaca lagu bixinayo wax weeyaan waa scalpers baa tahay hadiiba aad maalmo ka trade garaysid swing baa tahay hadiiba aad day sida 1 hour and 1 hour 4 hour 8 hour waxa soo kala ka trade garaysidna day trader baa tahay noocyada analysis-ka ayaa weyn ku xigsiin doonaa noocyada analysis-ka waxaa loo kala saaraa 2 qaybood dadka qaar waxay u analysis garayaan suuqa technical ahaan marka technical ahaan marka la leenahay waxay u analysis garayaan sub-bottomska price action-ka market structure-ka waxaasoo dhan iyagu wax uu price ku soo sameyn jiray bay hore uga soo analysis garayaan halka nooca dambe ee fundamental-ka la yiraahdaana ay ka analysis garayaan news-ka oo kale oo website-da galaan ay soo deydiyeen news cusub ayna iyagu wixii hore uu price ku soo sameyn jiray ayna ku kalsooneen ay news-ka waxaas ka analysis garayaan GDP sida wadanka GDP-ga soo kale lacagtaasi mar suuqii waxay ka diidayaan wadankaasi GDP-giisa kor buu ka hayay hoos buu u dhacay iyo interest rates-ka oo rate-yada inta badan la soo bandhigo ee lacagaha iyagu analysis garayaan oo suuqii price-kii hore uu sameyn jiray waxa kama analysis garayaan guud ahaan intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa casharkeenii intaynu cashar lamid ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.